waxaa xaflad aad iyo aad u weyn lagu qabtay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden. xafladaas oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud looguna mahadcelinayay madaxweynihii hore iyo dawladii hore ee Shariif Sheekh Axmed. xafladaas waxaa la isaga kala yimi Scandinavian-ka iyo gobolada u dhow dalka Sweden. xafladaas oo ahayd xaflad aad iyo aad u abaabulan waxaana hadallo ka jeediyay waxgaradka Soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay dadweynaha degan magaalada Stockholm ayadoo aan loo kala harin xagga dumarka xagga dhalinyarada iyo xagga dadka waaweynba. xafladaasna way ka duwaneed runtii xafladihii ka dhici jiray wadankan Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm. taas waxay noo cadeynaysaa inay Soomaalida aad u bislaadeen oo ay ku haminayaan dawladda cusub. waxaan u rajaynaynaa inay maaragtay ka qayb qaataan waxqabadka dadka dibadda iyo gudaha. dadkii meesha ka hadlay ay hadaladoodii ka mid ahaayeen in maaragtay la iskaashado dadka dibadda degan diasporada iyo dadka gudaha ku jira. madaxweynahana aad iyo aad loogu hambaliyay iyo dawladda cusub waxaana u rajeeyeen in waxqabad wanaagsan iyo nabad lagu wada noolaado Soomaalida meel walba ay joogaan adduunka ayadoo meeshaasna loogu duceeyay madaxweynaha iyo dawladda cusub ee wadankeena Soomaaliya. magaalada Stockholm runtii aad iyo aad ayaa loogu dareemayay maanta xafladaas waxaana ka dhacday xaafadda Soomaalida ee degto ee Rinkeby. Soomaalidana looma kala harin meel walba ka joogaan wadankan Sweden iyo Scandinavian-ka ayagoo isaga kala yimi. xafladaas oo ahayd xaflad aad iyo aad heer sare u ah oo aad loo soo abaabulay. waxaa farxad balaaran munaasabadan sharafta badan oo loo soo qaban qaabiyay madaxweynihii Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Professor Jawaari. marka labaad iyadoo farxad kala duwacay iyadoo intaan oo Soomaali weyna oo jaaliyad iyo urur iyo qabiil iyo shakhsiyaad aynan ahayn la isugu yimi Soomaali oo dhan oo israacsan. xafladan oo aan ku taageerayno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay walaalkeen mudana madaxweyne hambalyo iyo taageero naga guddoon. waxaan kaaga baryaynaa inuu kuu fududeeyo hawsha iyo xilka culus ee lagu doortay. waxaan caawa runtii annagoo saan u badan oo Soomaali ah oo ku nool wadankan Sweden waxaa halkaan isku keenay farxad aan rabno inaan ugu hambalyeeno madaxweynaheena cusub Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynihii ku-meelgaarka ahaa ee dawladda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo aan leeyahay ilaahay ajri xasanaad ka siiyo. dawladda cusub waxay guranaysaa beertii aad beertay. waxaan rajaynayaa insha Allah iyagana inay sii waraabiyaan. waxaan rabaa mar labaad inaan mahad u celiyo sidoo kaleeto baarlamaanka dhammaantiisa iyo guddoonkiisa oo aan leeyahay kalsoonidii ayna siinay haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed oo aan idinku soo doorannay ama ay dadkeenu idinku soo doorteen gudaha iyo bannaankaba joogaa. waxaad ka soo baxdeen kaalintii idinkaga baahnaa oo ah inaad noo doorteen mas-uul runtii qof maqla oo hadal ka soo celiya uusan jirin.
magaalada Stockholm waxaan toos ugu soo doonaynaa xafladda Rinkeby ee magaalada Stockholm oo Cabdiqaadir Salo iyo Sacad Umar Geedi